war qoraal oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa si adag loogu cambaareeyay weerar xooggan oo shalay ka dhacay xeebta Lido gaar ahaan Hotel Ileed ee magaalada Muqdisho. qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in qaramada midoobay aad uga xun tahay weerarkaas oo ay ku dhinteen dad badan oo isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin. sidoo kale qaramada midoobay ayaa tacsi u dirtay qoysaskii iyo eheladii dadkooda ku geeriyoodeen weerarkaas. baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si adag u cambaareynaysaa weerarka lagu qaaday Hotel Ileed ee Muqdisho kaas oo ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen dad badan. qaramada midoobay ayaa waxay tacsi tiiraan u diraysaa qoysaska iyo ehelada dadkooda ay dhibaatada ka soo gaartay ayaa lagu yiri qoraalka qaramada midoobay. dhanka Turkiga oo ka hadlay weerarkan ayaa si adag u cambaareeyay kadib war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in xukuumadda Ankara ay si xooggan u dhaleeceynayso weerarka lagu qaaday Hotel Ileed ee magaalada Muqdisho. ugu dambeyn dowladda Turkiga ayaa waxay sheegtay inay tacsi tiiraan u dirayso dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, waxayna uga barisay dadkii ku geeriyooday in naxariis janno uu siiyo, kuwa ku dhaawacmana uu si degdeg ah Allah u caafiyo. Maxamed Ruuray, Galmudug TV.